waxaan allaha qulaanjada iyo quudiye maroodiga cirkan baa caweyn lee barwaaqadu daayisiyo allaha baddaa iyo beriga abuuray ayaan baa ku diraya inantii iyadana foofoor maxay ahaday ka baxday oo iyaduna ay qaadatay jaamacadda beder xalayto waxaan yara sameeyey gabayar oo ducaa maxay ahaday anigu gabayna maan aqoon laakiinse wakhtiga uunbay baray iyo waayaha waxay la joogtaa oo barbarkayga taagan maamo Aasiya oo ah hooyo haysata 8 caruura oo agoon oo abood geeriyooday sidoo kalena hooyo hal abuurada oo waqtigu baray inay noqoto hal abuurad shalay hore ayaa muuqaal aan ku dubnay baraha bulshada aan ku baahinay dadyow kala duwan oo Soomaaliyeed oo deegaano kala duwan jooga dalka gudihiisa iyo daafiisa ayaa arintaasi si weyn uga soo falceliyay sidoo kale maamadu fariin ayaa ay dirtay ahayd in inanteedu oo sanadkan foonfur ka baxday oo 10 jir aanay haysanin aanay u awoodin inay jaamacad geyso wax ka yar 24 saacadood ayaa baaqaasi waxa kaga soo jawaabay jaamacadda Beder oo kamid ah jaamacadaha waaweyn ee ku yaala magaalada caasimadda ee Hargeysa jaamacadaas waxay sheegtay in waxbarashada inantaasi iyadoo ay kafaalo qaaday oo iyadu jaamacadaas habilaash ay ku dhiganayso inanta ayaa la weydiiyay faculty-ga ay qaadanayso waxaana ay sheegtay inay baranayso caafimaad medicine jaamacaduna waxay sheegtay 6 sano oo ay baranayso in hab lacag la'aan ah inantaasi ay ku baranayso madaxa xidhiidhka dadweynaha ee jaamacadda Beder jaamac Cabdifalaash oo aan anagu wada xidhiidhnay waxa uu sheegay in inantaasi haba yaraatee jaamacadda Beder aanay wax lacag ka qaadaynin 6 sano ee ay baranayso cilmiga caafimaadkana si bilaash ah ay markaas u baran doonto maama soo dhawow dhawahay maamo bal warra maamo ma sha Allah alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh maxay ahaydeen dadweynaha meel wada joogaan islaamka maxay ahaydeen la ilaaha illa allah maxamed rasuulullah maxaan ku wiri inaga dhaxaysay islaamka waxaan ku wiri iyagana waan u mahadnaqayaa maxay ahaydeen meel kasta ay joogaan nin wal oo sheerisiyay iyo nin wal oo soo caawiyay iyo nin wal oo taali kari waayay mid kasta waan u mahadnaqayaa alxamdulillah rabbil caalamiin waa mahadsantiin baan leeyahay taa waxa maxay ahaydeen dheer maxay ahaydeen alxamdulillah rabbil caalamiin eelkii baa way la soo xiriiray iyo dadkii maxay ahaydeen aanan aqoon imanka ma sha Allah aad baa la soo hadalayaa la soo wacay waxaan ku leeyahay alxamdulillah maxay ahaydeen marka inantii iyadana foofoor maxay ahaydeen ka baxday oo iyaduna ay qaadatay jaamacadda Beder khayr Allah siiyo jaamacadda Beder iyo wixii maxay ahaydeen abaabulay maxay ahaydeen oo iyaguna waxaan ku wiri maxay ahaydeen qayb libaax ka qaatay oo inanta waxa weeyaan waxay inantu sheegtay inay dhiganayso caafimaad maxay ahaydeen caafimaadka inkastoo ay wax kasta ku baxo hadday 6 sano tahay iyo hadday 8 sano tahay iyadu inay maxay ahaydeen kafaalo qaadatay ayay jaamacadda Beder sheegtay maxay ahaydeen waana ku mahadsan tahay waana mahadnaqaynaa ninkastoo ka qayb qaatay waana mahadnaqayaa alxamdulillah rabbil caalamiin bulshadoo dhan waana mahadnaqayaa intii soo caawisay intii la soo xiriiray wixii islaam oo dhan oo waxaan ku wiri maxay ahaydeen mid sheerisiye iyo midii soo caawiyay iyo midaan soo caawin mid walba iyo mid ka murugooday caloosha waxaan ku wiri ka murugoodayba mid walba waan u mahadnaqayaa alxamdulillah rabbil caalamiin maxay ahaydeen marka waka maanta waxa la joogaa suxufigii iga duubay khayr Allah siiyo maxay ahaydeen shaandar adiguna waad mahadsan tahay maxay ahaydeen lambarkaygu waa 403692 dad badan baa igu soo wareeriyay lambarka maxay ahaydeen oo maalintii dhaweyd ayaan ka iloonay maxay ahaydeen ku celi lambarka maamo lambarka waxa weeyaan 403692 magac maxaa soo baxaya Aasiya Axmed Daahir ayaa soo baxaya xalayto waxaan yara sameeyey gabayar oo ducaa maxay ahaydeen anigu gabayna maan aqoon laakiinse wakhtiga uunbay baray iyo waayaha gabaygaas yar waa duco marka gabayga yar baan isagana tirinayaa waxaan allaha qulaanjada iyo quudiye maroodiga cirkan baa caweyn lee barwaaqadu daayisiyo allaha baddaa iyo beriga abuuray ayaan baa ku diraya rabbo waan isjeclaanaa jidka wacanna wada mari fidmada adduunyada yayna kala fogayno aanaa kala faquuqnaan waalidkiina dhalanya rabbiyo wanaagiyo
farxaday ku waaraan maalinta la sugaya saacadoodii ay tahay sakaraadka mawdkiyo u dhib yaray su'aalaha waxaan sheegayaa waalidiinta oo dhan baan sheegayaa ayaan u ducaynayaa maaha waalidkii oo qudha waa waalidiinta oo dhan baan u ducaynayaa marka waxa weeyaan allah inaga aqbalo aniguna aad baa laygu soo duceeya ana inaan sii duceeyo waa waajib marka waxa weeyaan maasha allah aad bad maamo adigaa mudan